السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان bahda ku xiran channelka Mimirqan channel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii sharxitaanka maadada xisaabta ee fasalka form 4 ee manhajka cusub oo idinkaga imaanaya MK channel soo gudbiyuhu waa Saad Mimirqan fadlan haddii aad ku cusubtaa channelka inoo subscribe gareey adigoo gujinay gambarka like commentigan waa inoo muhiim mahadsanid waxaa inoo bilaaban doona safarkii cusbaa ee aan ku gali doono jabtarka saddexaad ee probability ee maadada xisaabta ee fasalka form 4 ee manhajka cusub la socod wacan videogan waxaan kugu soo gudbin doonaa introductionka iyo qaybo kamid ahi probability-ga ee buugeena manhajka cusub ee fasalka form 4 ee maadada xisaabta la socod wacan sida idin muuqataba waxaan bilaabnay cutubkii saddexaad ee maadada xisaabta ee loo yaqaano probability oo ah ihtimaal probability-ga ayaan ku qaadan doonaa cutubkeeni saddexaad probability-ga ihtimaalka introduction-ka haddii aan ka bixino waxaa maanta inoo qoran introduction-kiisa qeexitaankiisa iyo mid kamid ahi termisyada la xiriira intaan ku guda jirno probability-ga waxyaaba qaar aan maqli doono haddaba marka hore probability-ga aan isla fahno waa maxay probability ihtimaal suurtagalnimo xisaabeed waa maxay tahay marka probability-gu qeexitaan fara badan oo leeyahay oo buwaagta kala duwan ay bixiyaan iyo qeexitaano fara badan haddaba inta hadda maanta aynu rabno inaan kusoo koobno qeexitaankiisa wuxuu noqon doonaa waa is the study of chance or likelihood of an event happening is the study of chance waa barashada fursad or the likelihood ama suurtagalnimada of an event happening ee dhacdo ku dhici karto probability lagu sheegayaba waa fursad ee dhacdo ku dhici karto ama suurtagalnimada ee dhacdadan ay ku dhici karto ayaa waxa loo yaqaanaa probability meelo fara badan oo inta badan loo adeegsado probability inta badan probability waxa la israacsiyaa statistics oo labadooda waa kuwa aan kala maarmin ay kamid yihiin marka so qeexitaanka inuu qaadana maxay tahay marka waa barashada fursad ama suurtagalnimada ee dhacdo ku dhici karta ayaan u qeexi karnaa ihtimaalka ama waxaan kaloo ku qeexi karnaa hab kale markaan rabno inaan qeexno probability-gu is a numerical value which gives a measure of the likelihood of the particular outcome at each trade probability-gu waa numerical value waa qiimo tiro ahaan oo ina siinaysa cabiraadaasoo ay suurtagalnimada u tahay marka ama ay suurtagalnimada particular outcome natiijada ama outcome-ka gaarka ah ee markaa soo baxayso at each trail experiment waliba ama tijaabo waliba outcome-ka natiijada kasoo baxaysa suurtagalnimada tiro ahaaneed ee cabirkaas lagu cabirayo ayaa waxaa loo yaqaanaa marka probability oo waxaan dhahnay waa numerical value waa qiimo tiro ahaan oo na siinaysa markii la cabiro suurtagalnimada outcome gaar ah ay kasoo baxaysa marka at each trail experiment waliba ama tijaabo waliba oo markaa la sameeyo haddaba probability intaan ku guda jirno qaybaha experimentiga lagu sameyn doono way badan yihiin oo termisyadeedan la aadi doona insha Allah haddaba markaan dhahayno probability-gu it expresses ama expressed waxaa markaa uu as a number ahaan markii loo fiiriyo wuxuu u dhaxeeyaa ever ilaa 1 ayuu u dhaxeeyaa yani ever iyo 1 dhexdooda ama iyaga uun ay markaas ay dhacayaan marka taa macnaheedu tahay marka probability-gu 0 markuu yahay oo maxaan leenahay 1 markay tahay maxaan dhahaynaa marka maadaama aynu dhahnay wuxuu u dhaxeeyaa tiro ahaan ever ilaa iyo 1 markii percentage la dhahana 100 percentage weeyaan 0-ga means waxaa la jeedaa in eventigan ama dhacdadan will never happen aysan dhici karin dhacdadan inaysan dhici karin ayaan waxaan leenahay marka waxa lahaa waa probability-ga markuu 0 yahay 0-ga waxa uu tan yahay dhacdadan ma dhici karto oo maxaa kamid ah marka waxaa kamid ah masalada soo ahaan inta badan probability tijaabooyinka la sameeyo waxaa laga soo qaataa sida landuga oo kale turubka oo kale iyo shilinka oo kale hadda markii aan dhahno landuga ayaan wareejinay ama aan tuurnay ama toosing ku sameyn landugas aad ma heli karaa probability ama suurtagalnimada lagu helayo tiro 8 ah in landu la tuuro oo tiro 8 ah la helo suurtagalnimada la helayo ma noqonaysaa dhacdo markaa ay dhici karto waa maya sida aweed probability-gaas waa 0 ay noqonaysaa marka 1 markaan dhahno means waxaa la jeedaa event will always happen mar walba uu dhici karaa oo macnaheedu waxay tahay hadii aan dhahno probability-ga
maalmaha isbuuca oo mid kamid ah uu ku noqon karo isniin dabcan waa certainly waa mid la hubo isniin ay yani ku jirto ama monday ay ku jirto todobada maalmood ee isbuuca waa suurtagalnimada dhacda ee ku dhici karto sida aweed maadaama suurtagalnimada dhacda ee ku dhici karto waxay noqon kartaa marka dhacda will happen oo dhici karta oo ama dhacdo oo never ama happen ay dhici karin dhacdada ayna dhici karin waxaan u qaadanaynaa tiro ahaan zero haddii one ay tahayna dhacdadaas waxaan dhahaynaa waa always happen mar walba bay dhacaysaa marka okay maxaan dhahnay probability oo aan ku fahnay inay tahay fursad ay dhacdo ku dhici karto ama suurtagalnimada dhacda ay ku dhici karto ayaa waxaan loo yaqaana marka probability waxaa jira marka key termsya probability-ga la xiriira oo haddii markii aan rabno inaan marka hore iyaga un haddii aan fahno hadhow waxaa waaye markii yani shaqadii iyo waxyaabaha la isticmaalayo in hadhow ay marka ay noqoto kuwa easy ah oo laga shaqayn karo marka haddaba termsyada probability-ga intaan ku guda jirno la xiriira aan maqli karno waxaa waaye experiment marka ugu horeyso inta aan probability-ga shaqo iyo waxaas la galin horta marka hore waxaa la sameeyaa experiment tijaabo la sameeyaa oo tijaabada la sameynaya maxay tahay misalan tusaalaha tijaabada la sameeyaa waxay tahay ama shilina tuuraya ama yani turo markaas soo bixinaya ama wax loo yaqaano landuga la sameynaya qaabkaas tijaabadaas la sameynaya experiment loo yaqaan ama trailka loo yaqaan experiment maxaa waaye waa process waliba that results in one or more outcomes waa process markaas lagu soo saarayo natiijooyin hal ama wax ka badan oo outcomes ah ayaa markaa lagu soo saarayo marka haddaba experiment maxaa isla fahanaa horta marka hore experiment waxaa waaye waa hawshii marka hore aan ka bilaabi lahayn in wax uu soo baxo marka hore tijaabo la sameeyaa ka horeyso tijaabadii ama experimentigaas resultiga outcomeska hal ama laba ka soo baxa waxa loo yaqaan experiment la sameyn doono outcomeska maxaa waaye mar haddii experimentiga aan sameynay wax baa soo baxaya wixii soo baxaya waxa loo yaqaan outcomes ama natiijada soo baxday waa possible result waaye resultiga macquulka ahi oo faan experimentiga soo saaraysa markii experimenti aan sameyno wax baa soo baxaya outcomeskaas waxa loo yaqaan marka sida hadda ujeedaan waana mida possible result of experiment waxaa kaloo baran doonaa sample space waxa loo yaqaan sample space waxa la lahaa haddii tijaabadii aan sameynay outcomes ka soo baxay outcomeskaas intuu la eg yahay ayaa waxaa loo yaqaana marka sample space intee aad outcomes one or more saddex afar maxaa loola jeedaa tusaale ahaan experiment waxaan sameynay landu ayaan markaa toosid ku sameynay landuga toosid ku sameynay outcomeska soo baxaya wuxuu noqon karaa 1 2 3 4 5 6 ayuu noqon karaa wax kale ka badan ma jiraan wax ka yarna ma jiraan maadaama inta uu yahay outcomeska soo baxay waxa u bixinaynaa magac ah sample space u bixin doonaa sample space ayaan u bixin doonaa okay the set of all possible outcomes waa sample space waxa waaye possible outcomes ki soo baxay oo groupaysan oo sada oo urur ah ayaa waxa loo yaqaan marka sample space event dhacdo maxay tahay marka event wax kale ma ahan tijaabadii aan sameeyno landugi aan sameeyno outcomes aan soo baxay outcomeskaas waxa u baxsan sample space u baxsan haddaba waxa jirta marka hadhow tiro gaar ah hadii lagu weydiiyo dhacdo lagu heli karo tiro saddex ah dhacdo lagu heli karo markii landu la tuuro tiro saddex ah lagu heli karo haddaba landu markii la tuuro tiro saddex way ku jirtaa meeshaas tiro saddexda ah target way okay dhacdo ay ku dhici karto tiro afar ah afar sidoo kale target noo yihiin kuwa targetka ah waxa loo yaqaanaa eventiga ama dhacdaas ah ama event loo yaqaanaa experimentiga tijaabada aan sameeyno oo tuuritaanka ah outcomeski wixii noo soo baxay outcomeski magaca aan u bixino oo sample space-ka wixii soo baxay sample space-ka inta gaarka ah la raadinayo ayaa waxa loo yaqaanaa eventiga waana hormo urur ayuu u yahay marka it's a subset of the sample space of space that we have interested in and that we are interested in waa subset-ka waa hormo urur wuxuu u yahay marka hormo urur sample space uu yahay hormo urur maxaa la wadaa kulay markii ururada la baranayo subset-da wax loo yaqaan jirto tusaale ahaan universal tirooyinka ku jiraan iyo urur A inta ku jirta urur A wixii ku jirta waxa laga helayaa ururka kale hadii ururka A inta ku jirta ururka laga helo mesela tusaale ahaan B waxa ku jirto 1 3 4 5 okay N waxa ku jirto 4 5 ku jirto labadan yaa hormo urur noqonaa marka yani A is a subset of B A is a subset of B sababtoo ah hormo urur waxay u noqonaysaa B sababta maxay tahay marka tirooyinka ama ku tirsanayaasha ku jira B A dhamaantood waxa laga helayaa B laakiin B is not subset way uma noqonayo hormo urur uma noqonayo sababta maxay tahay waxaa jirta marka tirooyin oo B ku jira oo aan si toos ah ugu jirin marka A aan ku jirin laakiin A is a subset
of b ay noqonaysaa subsetkaas qaab noocaas loo yaqaan sida awgeed maadaama hadda sample space-ku uu yahay 1 2 3 4 5 6 uu yahay eventigana ay noo noqotay 3 iyo 4 haddaba 3 iyo 4 sample space-ka waa ku wada jiraan sida awgeed kaasa waxaa loo yaqaan marka subset oo horma urur ay noqonaysa marka eventiga marka eventiyada waxaa u qaybin doonaa ilaa iyo 3 qaybood ayaan u qaybin doonaa midna waxaa loo yaqaanaa certain event dhacdo markaasi oo certain ah oo la hubo iyo mid impossible ah mid markaasi aan macquul gal ahayn iyo mid likely equally saddexdan u qaybina certain midka la hubo dhacdooyinka saddexdaas oo qaybin doona mid la hubo mid markaas possible aan ahayn iyo mid likely ah oo si siman markaas oo u soo bixi kara marka okay sidaan sheegnay ba eventiga waxaan u qaybinay certain impossible iyo likely equally certain eventiga tusaale ahaan dhacdo markaasi oo la hubo dhacdadan misalna tusaale ahaan qoriga la tuuray kor loo tuuray dhacdada suurtagalnimada ee qoriga oo markii la tuuro xabada inay soo laabanayso waa dhacdo certain oo hubo oo ileen hawada ma sii galayso inay soo laabanayso dhulku soo laabanayso waa certain impossible oo possible ah impossible waxaa qoriga haddii aan tuurno oo kale in xabadii dhacday ay hawada ay ku dul sabayso waa impossible waay waa dhacdo markaas aan suurtagal ahayn oo impossible ah oo waxaan siin doonaa marka 0 kana 1 ay noqonaysaa marka sida caadiga likely equally yani dhacdadan waxaa waaye si siman yani waa 50-50 si siman misalan tusaale ahaan shilin aan tuurnay coin ayaan tuurnay coin haddii aan tuurno ama waxaan helaynaa wax loo yaqaano hiid ah ama waxaan helaynaa tail aan helaynaa hiidka haddii hal coin la tuuro oo sample space-ka oo 2 noo noqdo midka aan helayna eventigana wuxuu noqonaa marka 1 oo ah mid walbana wuxuu meeshaas ku leeyahay marka 50 ama 1/2 ayuu ku leeyahay marka certain markay tahay waa markay ay 1 ay noo tahay wax loo yaqaan probability-ga waana dhacdo markaas hubaal ah oo marka hubaal ah impossible waa mid aan la hubin marka impossible oo macquul ahayn suurtagalnimadiisu ay 0 ay tahay likely and equally likely equal markii la dhahaa waa kuwa inta badan si siman ah u leh oo markaasi inta uu ku leeyahay intaasna uu markaa oo halkaa uu kaga leeyahay si lamid ah mid waxaa jirta marka likely ah oo fursad leh likely event mid kale sii jirto likely event ah kaas waxaa waaye misal tusaale ahaan dhacdo ama suurtagalnimada ay ku dhici karto markaas ama inuu roob da'o xilliga guga inuu roob da'o waa marka mid fursad leh waay yani ama way dhici kartaa oo ama mid aysan dhici karin ay noqonaysaa marka waa mid marka fursad u banaan waay boqolkiiba intaas markaas u banaan laakiin markii likely equal la dhaho waxay noqonaysaa marka mid kuwa siman oo si siman ah oo marka 50-50 u noqonaysa marka okay marka inta aan kaga soo gudubno oo dib aan u jaleecno qaybteena probability-ga qeexitaankiisa sameynay waxaan dhahnay 0 hadduu yahay waa impossible probability-ga ama will never happen waa dhacdo event aan dhaceynay 1 markay tahay waa dhacdo mar walba dhacaysa experiment aan baranay waa tijaabada wixii aan sameyn doono oo coin-kii iyo true-kii iyo wixii lamid ah outcome-iskana wixii markaas aan sameynay wixii ka soo baxa outcome-iska soo baxayna waxaan u bixin doonaa dhanay sample space haddaba eventigana waxaan leenahay waa horma ururka sample space-ka ayuu lamid yahay haddaba qaacidadiisa aan fiirno kadibna aan sii guda galno marka qaacidooyinka kuwan waa introduction-ka waaye waxaa jirta marka markii tusaale ahaan probability-ga uu iska fudud yahay simple uu iska yahay markii laga shaqeynayo oo kale waxaa jirta marka hab yar oo loo yaqaano counting principle ama principle counting markii probability qayb ka mid ah qaababka loogu shaqeynayo ay ka mid tahay intaan u gudbin tusaalihii oo la xiriira counting principle-ka waxaan filayaa inaa hadda qaybtan aan isla fahanay haddii ereyadan si fiican u fahantay oo probability-geena inta badan waxaa waaye ereyada haddii termisyada haddii mar walba aad fahanto waa mar walba waa kugu soo laaban waxyaaba inta badan soo laabanaysa sample space-kii eventigii outcomes wax dhan waa maqlaynaa marka sidaa awgeed hadda probability-geena wuxuu la mid noqon doonaa oo eventigaas wuxuu la mid noqon doonaa maadaama inta soo baxday oo aan u bixinay sample space-ka aan u bixinay probability of sample space-ka aan u bixinay sidoo kale number of sample space-ka qaabkaas aan u qorno number of sample space-ka qaybtan hoose noo noqday inta kamid ah yani hadda waa kana 1 2 3 4 5 6 waa sample space-keeni waa sample space-keeni inta uu yahay
sareeyana ayaa noqonaya marka inta markaas laga rabo oo muxuu noqon marka number of eventiga misalan tusaale waxaan tuuraan ku dhahay landu ayaa marka toosin ku sameeyay waxaan rabaa suurtagalnimada aan ku heli karo 3 suurtagalnimada aan 3 ku heli karo maadaama marka hore sample space-keena meeqa waay waa 6 waay sample space-keena waa 6 okay suurtagalnimada oo 3 aan ku heli karo 3 meeqa ka tahay yani markii aad fiiriso oo sample space-ka aad tirso 3 meeqa ka tahay hal ay ka tahay kulli hal 3 bisa meesha ku jiro 1/6 laba aan ku heli karo laba meeqa ka tahay hal sample space-keyga waa 6 waay hay 5 meeqa ka tahay hal ay ka tahay 6 waa sample space-keyga taas waa marka waxaan dhahaynaa marka likely equal si siman markaas ay halka ay ku leeyihiin fursadaas ay ugu leeyihiin 3 iyo 2 si siman ay fursadaas ay ugu leeyihiin in marka la heli karo landu hadii la tuuro fursada lagu heli karo ama suurtagalnimada lagu heli karo 3 suurtagalnimada lagu heli karo 4 suurtagalnimada lagu heli karo 6 suurtagalnimada lagu heli karo 1 dhamaantooda qaab 50-50 ama si siman ah ay suurtagalnimadaas ama fursadaas ay u wada leeyihiin hadii aan ka badno aan dhahnaba probability lagu helayo markii la tuuro landu tiro oo 9 ah lagu helayo probability marka fiir sample space-keena aan sameeynay 1 ilaa 6 waa 9 ma ku jirto maya probability-gaas markaas muxuu noqonaa marka probability-ga oo 0 ah oo ah impossible sida waxa leenahay probability-geenu oo event-gaasi waa 0 waay maxay ka dhigan tahay macnaheed impossible waay yani impossible-kii English-ka ahaa maanta 0 waa noo tahay English-ka 0 waa noo tahay markii shaqada tahayna inta fursad ay markaas u baxayso tani qodobkan waa gaari doonaa oo shaqadiisii iyo wixii la mid ahay balse hadda macnaha maadaama sharaxaadii iyo erayada naga soo dhex gashay kuna ay ku fahantahaana meesha oo ugu darnay laakiin tusaalooyin oo quseeyo oo asiga laga shaqeynayo ayaa noo dhima marka okay waxaan u gudbaynaa marka qaybta oo hore aan sheegnayba oo ah counting principleska iyo sida loogu shaqeeyo